dowladda dalkani Kenya ayaa waxay ciidamada u tira badan ay geysay xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya kadib markii habeenna ka hor maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen tulada Haamey oo ka tirsan gobolkan Waqooyi Bari. muuqaalkan aad aragtaan waa xaruntii ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerarka ay ku qaadeen ee ciidamada ammaanka ee dalkani Kenya ay deganaayeen. tulada Haamey ayaa waxaa gaaray mas'uuliyiin ka socday dowladda dalkani Kenya oo horkacayay xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Dadaab oo ka tirsan tuladan Haamey. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay lana hadlay TV-ga qaranka Soomaaliyeed ee dadka ku dhaqan tuladaasi Haamey oo TV-ga qaranka Soomaaliyeed uga warbixiyay. laakiin hadee barakac iyo cabsi inta ahaato habeenka xalay hadda waa laga dhaxay xafadaha barakac iyo carar ma ogi hadda u dambeeyay waan ka dhaxnay ciideed way ka dhaxday xaafadda iyada la way gubeen wixii macalimiinteendooyinkeedii wixii qashin ahay ku jiray hatta weelka wax lagu karsanay kale way gubeen gurigan halkan muuqdaa ku jiray ligeena gurigaas ku jiray marka waqti xun baa anoo iska jifrad musqushan agteeda fariinka ka soo fariinay guriga ugu soo galay wuxuu saayada meesha ku dhacay marka ilaa habeenka xalay ahaa guriyahana ma baryin goor 6 saac iyo bar oo nimo anaga oo ilmihiina ay saxdeen anaga marka guriga soo galayno ilaahay baa naga badbaadiyay laakiin iyo wixii dad weynaha kale u dhaweey maal mas'uulihii maal dadkii lahaa digi iyo dambas bay ka dhigeen marka ilma ma jiraan gacan kuma jiraan aminka ayada aniga aan maxay wax ilma iyo caruur waxa weyn oo wadankan iyo magaalada oo joogay ma jirin dhulka loo qaxay 6 saac baro habeen ahayd ilaa laba cawo marka firkiisa waa la laawo maqan yihiin saacadan laga bilaabo guriyihii lama galo dhulka la hergalaa dhulka 10 saac marka la gaaro ay dhulka waa ka yuuqaan ilmihi. dhanka kale xildhibaanka deegaanka Dadaab Maxamed Daahiye Ducaale oo isaguna la hadlay bulshada ku dhaqan tulada Haamey ogana tacsiyay weerarkan ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen wuxuu yiri kolkay tireen waxa soo haray macallimiin ka yar 20 bas waa soddon kale adiga ilmahaadina waxa taan wax ku barto macallimiinta kale meesha ku nabad waaye oo way ku dhamaadeen saasma naftooda la arrin saasma lama jeeso in lagu majin nin macallin baa lagu diray saasma adees ka soo qaad hadii inta laga qaado lagu ganyeri oo meesha lagu qoro dadka kale ma tiraan meesha ya nimankii Kenyaanka kala aha oo walaalaheena aha oo macallimiinta noo ahayeen nafta u diiday meesha saasma hadalkiisa miina faham markii koowada meesha la galay shabaab maxaa qabsan luqba ka raacay wasaas meen waxa alla waxaad aragteen askar baa la keenay teendooyin baa loo keenay waxay idhan aniga nafteeda noo keen sufriyada la'aan baan nahay hadda sufriyadaan u keenay askarta nafteeda waxaan doonaa inaan moraal ku dhiso waxaan soo in guriga loo dhiso waxyaabo loo soo marka waxaan ugu eedina annagoo shaqada ku maqan waxba xana dhihina noomini runta daa'iman meesha wax dhinti ma jira wax dhaawacna shir ku hadin gaar ma jira sas moogi cabsi taas moogti waa wax kale. maleeshiyaadka Al-Shabaab ma aha oo kaliya meelaha dhibaatooyinka ka geystaan gudaha dalka Soomaaliya balse gobolkan Waqooyi Bari ayaa muddooyinkii u dambeeyay ay dhibaatooyin u geysanayeen dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan Waqooyi Bari. deegaankan Haamey ayaa waxay tahay markii labaad oo ay weerar ku soo qaadaan dhibaatooyin ay u geystaan dadka shacabka ee ku dhaqan deegaankan. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol raadiyaha iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed Haamey gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.